السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeenan waxa aynu kaga hadli doonaa xaqiiqada qaramada midoobay. qaramada midoobay waa erey bixin ay adeegsadaan dawladihii isbahaysiga ahaa ee ku itaal roonaaday dagaalkii labaad ee dunida. dawladahaas oo ay hogaaminayeen Mareykan, Ingiriis iyo Faransiis. dawladahaas oo markii ay ka fakireen kadib arkay in aanay dunida sii maamuli karin haddii aanay meel dabada gelinin amaba waji kale u xidhan, waxaana ay ku dhawaaqeen ururkan qaramada midoobay 24 Oktoobar 1945, halkaas oo ay sheegeen in waxa ugu badan ee ay ilaalinaysa ay tahay sinaanshiyaha, cadaaladda iyo nabadda dunida, iyaga oo qoray dastuur lagu ciqaabayo dawlad amaba qof kasta oo ka hor yimaada awaamiirta loo dejiyay qaramada midoobay. laakiin waxa aad moodaa in saddexda shay ay ilaalinayeenba cagsigooda ka soo horjeedkooda samaynayeen, waana ta igu kaliftay in aan muuqaalkan idin soo gudbiyo. waxa aad moodaa in wax badan oo caamadu moodayso waxtar ay tahay hagardaamo suna oo malab dusha lagaga soo dhooqay. haddii aynu eegno taariikhda ay samaysan tahay qaramada midoobay, arki maysid mar keliya oo dawladaha waaweyn ee sameeyey laga hor yimid amaba lagu cambaareeyey. waxaadna moodaa in ay isku beddeshay meel lagaga hadlo qadiyadaha dawladaha masaakiinta ah iska leeyihiin. tusaale ahaan, Mareykanku waxa uu ku duulay dawlado aad u badan oo gaal iyo islaamba leh. waxa dawladahaas ugu dambeeyay Ciraaq, marka laga reebo kuwa ciidamadiisu sida degdeg ah dadka ugu gafaan. Ciraaq waxa uu ugu marmarsiyooday inay haysato hub suna, kadibna waxa uu galay iyada oo qaramada midoobay dastuurkeedu dhigayo in aan dawladina mid kale ku taxadiyin. haddana lama arag wax hadal haya dagaalkaas, lamana arag meel qaramada midoobay ay ciidan u dirayso Ciraaq si ay Mareykanka ugu soo saaraan. sidoo kale waxa uu ku duulay oo uu ilaa maanta haystaa dalka Afghanistan oo isna uu kibir ku galay. in lala hadlo iska daayay isbahaysigii NATO oo dhan ayaa loo diray si ay gumaysiga iyo xasuuqa u sii xoojiyaan. waxa uu si badheedh oo joogto ah ugu tacadiyaa xuduudaha dawladaha kale iska leeyihiin, isaga oo markuu doono duqayn cirka ah u geysta, marka uu doonona ciidamadiisa intay ku soo degaan ay dadka afduubtaan. sidoo kale yuhuuddu waa dawladda keliya ee aan xuduud maanta lahayn, lamana arag dawlad tidhaahda bilaaxad ayaan ahaanaynaa. haddana qaramada midoobay waa ay ka aqbashay oo lalama hadlin. waxa ay dad rayida laynayso oo birta marinayso mar keliya laguma dhicin in laga dhex cambaareeyo guriga qaramada midoobay. mar kasta oo lagu fakarana fiito Mareykanku leeyahay ayaa hor yaalay. qaabka awood qaybsiga ee qaramada midoobay waa halka laga dhaxlay dulmiga iyo tacadiga, waayo waxaa awoodda dunida oo dhan gacanta loo geliyey 5 dawladood oo kala ah Mareykan, Ingiriis, Faransiis, Ruush iyo China. waxaa go'aan ka soo baxa qaramada midoobayna waxaa soo dejiya oo ka raaliya 5 dawladood. haddii aanay 5tani ka raali ahaynna ma soo baxo wax go'aana. waxaana tusaale inoogu filan dagaalka Suuriya ee sanad badan sii socda oo aan ilaa maanta qaramada midoobay waxa la waayay amaba aan idhaahdee 5 dawladeed ee taliya aanay doonayn in dagaalku joogsado. hay-adaha hoos yimaada qaramada midoobay ma dhaamaan waxaba, iyada oo waxaa taladeeda haya dawladaha waaweyn. waxaana mar dhacday in dawladaha yaryar codsadeen in ay dawladaha waaweyn la sinaadaan marka la joogo hay-adda UNICEF ee manaahijta dunida u dejisa. laakiin waxaa dhacday in Mareykankii uu fadhiyey xanaaqay, meeshiina kaga dhawaaqay in haddii la simo Mareykan iyo dawladaha yaryar ay baabiinayaan qaramada midoobay. waxaana taas ina tusaya in cidda gacanta ku haysa go'aamada qaramada midoobay maxkamadaha hoos yimaada qaramada midoobay ee lagu tilmaamo in ay baadho dambiyada dagaalka. waxaad moodaa in dambiyada la baadhaya ay yihiin kuwa masaakiinta yaryar ee lagu eedeynaya, halka kuwa waaweyn aan cidi soo hadal qaadin. waxaana tusaale inoogu filan madaxweynihii Mareykanka ee Bush uu sababay dilkii in ka badan milyuun qof oo rayida oo dawladahoodii si nabada ugu noolaa. laakiin nasiib daro lama arag meel la leeyahay ha la hor keeno maxkamad iyo meel laga hadal hayo ee ha la hor keeno maxkamadda caalamiga ee ICJ.
halka madaxweynaha Suudaan ee Cumar al-Bashir oo lagu eedeynay inuu sababay dilka dhowr boqol oo qof oo la amray in maxkamadaha la hor keeno. markaniyana laguma hayo maxkamadda oo dalbatay nin ka tirsan dowladaha xoogga badan ee markasta waxa ay ku wareegtaa masaakiinta u dhalatay dowladaha yaryar ee aan wax badan haysanin. taasina waxa ay na tusaysaa laba wajiyoodka qaramada midoobay. haddii aynu intaa ku dhaafno tusaalayaasha xaalka qaramada midoobay, waxa aynu leenahay waxaa jiray hadafyo hoose oo loo aasaasay qaramada midoobay. hadafyadaas oo sana waxa ugu weynaa in la helo weji aan dunidu diidayn oo lagu gumaysto, wejigaas oo loo qurxiyo amaba maryo qurxoon loogu xidho. waxa kale oo ay doonayeen meel ay boobkooda iyo dhacooda ku hoos qariyaan. waxa kale oo ay u aasaaseen oo xaqiiqadu tahay in aan dunida muslimka ahi mar dambe madaxa soo qaadin oo marba lala beegsado qodobyo ay qaateen. laakiin waxaas oo dhan rayidka shacibka iyo dunida kale toona looguma sheegin ee labiska iyo magaca qurxin ee dusha lagu huwiyey ayaa la tusay. haddii aynu eegno lafteeda qodobada la sheegay in loo aasaasay qaramada midoobay oo ay ugu waaweynaayeen saddexda qodob: cadaaladda, sinaanta iyo nabadda. maanta waaqica aynu ku nool nahay mid kaliya miyaynu ku aragnaa? iskaba daayay dowladaha nabadda ku nool ayaa loo adeegsadaa qodobo qaramada midoobay laga soo saaray si nabaddarro loogu celiyo. waxaana tusaale inoogu filan in Soomaaliya markii 2006 maxaakiimta islaamiga ah ay nabadda ku soo celiyeen, dib loogu soo duulay oo nabaddarro laga abuuray iyada oo la adeegsanayo qodobo qaramada midoobay ka soo baxay cadaalad iyo sinaan hadalkooda daa. waxa aynu hadalkeena ku soo dhammaynaynaa xaqiiqada qaramada midoobay ay noqotay meel ay ku midoobeen dowladaha xoogga badani si ay u boobaan kuwa itaalka yar, inay noqotay meesha laga soo go'aamiyo dulmiga iyo tacadiga, inay noqotay barta kulmisa dowladaha dunida korkeeda ku kibray, inay noqotay meel aan masaakiinta waxba looga ogolayn, inay noqotay meel ariga loo dirsado waraabaha.